inta dadka qabtay ee shaqaysatay iyo inta dhagolayaal shaqaysatay inta dhagaha qabtay badan dhagolayaasha laba qof ama saddex qof ka shaqaystay dawladda iyo shaqaalaha qaranka maantana 25 way dhaafsantay ka shaqaysanaysa farxad baan rajaynayaa insha Allah iyo ka khayr badan waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa madaxweynaha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونايسان دعوة الكسر وهذا مثل لو كمل برنامجنا وحبرشة هذا كلا ندي تبنو برنامجنا تضبط هذا وهذا لو حشاري إنه كسر قاعد نسمع كسرنا بلشة غير سومالنا كله وذاقنو يبلشة كلا عفك سومالي وهذا الشبع أرضيدا وحكا برتي دكسية ذا كلا دوان قبل كمرتشحية سومالان جارهانا دكسية ذا سرية جامعة هذلك dhinaca baahiyaha gaarka ah leh sidee ay uga qayb qaadanayaan barnaamijka shaqo qaran kaalinta intee leeg ay ku leeyihiin ardaydaasi barnaamijka shaqo qaran oo si gaar ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu u siiyay qadarin dheeraad ah in ardayda baahiyaha gaarka ah leh ay ka helaan barnaamijkaasi shaqo qaran iyadoo sida loo wasataan arday kamid ah ay ahayn ardaydii ka qayb qaadanaysay shaqooyinkii kala duwanaa ee wasaaradaha ka shaqo galay fulinayeen ardaydii dhamaystay barnaamijkii sanadkii hore ee shaqo qaran waxa garabkayga fadhiya arday aad u tiro badan oo kamid ah arday qaarkood ay ku jiraan waqtigan jaamacadda Hargeysa sidoo kale qaar kalena ay kamid yihiin ardaydii ka soo baxday dugsiyada sare iyadoo qaar kalena ay yihiin arday dhamaystay xirfado gaagaaban oo dhinacyada farsamada gacanta ardaydaasi baahiyaha gaarka ah waxa isna garabkayga fadhiya agaasinka waaxda baahiyaha gaarka ah wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo runtii ku hawlan sidii ardaydaasi waxbarashada u dhameystirnaa isla markaasina ay u heli lahaayeen fursadda ay helayaan ardayda kale ee reer Soomaaliland ee ku sugan goobaha kale ee waxbarashada ilaahay maankooda miyirkooda iyo guud ahaanba laxaadkooda u dhameystirtay Cabdishakuur waxaan jecel ugu horeeyna weydiiyo bal Cabdishakuur ardaydan tirada badan la saaka waxaan kula kulnay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiska barasaabka iyagoo u dhaxeeya sidii ay u gudbin lahaayeen foomamkoodii codsiga ee barnaamijka shaqo qaran ay ka qayb gali lahaayeen iyo sidoo kale shahaadooyinkii wixii standard ee looga baahnaa in barnaamijkaasi ay ku gutaan guud ahaan ardaydina ma yihiin qaar dhameystir Cabdishakuur barnaamijka shaqo qaran ee baahiyuu baahnaa ama aqoontii looga baahnaa ardayda galaysa waxaan isticmaali doonaa farahan yar isticmaali doonaa maadaama ay arday dhagwaliyaal inala joogaan dhammaan horta waan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland marka labaad waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha oo arintan shaqo qaran sameeyay ardaydaasina inay yimaadaan oo ay raadsadaan waxa keenay inuu madaxweynuhu barnaamijka shaqo qaran horta sameeyay horta marka koowaad madaxweynuhu aad buu mahadsan yahay marka labaad waxaan u mahad celinaynaa agaasimaha shaqo qaran oo isaguna hawshan tahay hawl aad iyo aad u muhiim ah dhammaan ardayda reer Soomaaliland waxaan marka saddexaad macalina wasaaradda barasaabka iyo gudoomiyaha Maroodi Jeex gaar ahaan ardaydani su'aashaad weydiisay waa ardaydii dhamaystay dugsiyada sare ee form 4 ka dhameeyay iyo qaarkoodna jaamacadaha ay dhameeyeen wixii process looga baahnaana ilaa saaka waxaan ka shaqeynaynay wasaaradda arrimaha gudaha iyo barasaabka xafiiskiisa marka su'aashaas waxa weeyaan yes way soo dhamaysteen waxyaabihii looga baahnaa
waa tahay daawadeel waxaa iyadu isweydiin mudan in barnaamijka shaqo qaran ay ka qaybgalayaan ardaydii waxbartay ee reer somalilan oo si siman cadaalad ugu heli doona nasiibkooda laakiinse ardayda baahiyaha gaarka leh oo ka faa'iidaysanaya fursadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumadda somalilan ay ugu garatay in ardaydaasi la siiyo fursado ka mid a fursadahaasi oon looga reebin waa naafo ama waxbaa ka dhiman jirhkiisa waxaan jecel cabdishakuur inaan mar kale weydiino bal ardaydaasi sidee u heleen fursadaha waxbarasho ee ay ku gelayaan dugsigii sare halkay ka helaan dugsiyada dhexe farsamada gacanta hadday noqoto iyo sidoo kale jaamacadaha waxbarashooyinka intaa leeg ood imika ii sheegtay in qaarkood jaamacadaha ku jiraan ma ay dhammaysan sidee u heleen sidaas ugu suurto gashay mar kasta horta marka ilaahay baa mahadle marka labaad ardaydan gaar ahaan hargeysa waxaa jirtay in jaamacadda la yidhaahdo beder aanu kala saxaanay heshiis kaasoo dhigaya inay ardayda horta jaamacadii hadda sanadkan 2020 laga bilaabo inay si toos uga bilaabaan marka ardayda qaar baa ku jira jaamacadda hargeysa oo qaarkood naga caawisay ardayda badankoodu waxa ku jiraan jaamacadda camuud oo ay dufcaddii imika lixaad ay soo dhameynayaan ardaydan imika halkan fadhida laba qaybood bay isugu jiraan qayb waxa weeyaan qayb cusub oo jaamacadaha imika galay iyo qayb horey u soo dhameysay oo imika halkan fadhiyo kale maxamuud oo kale waa ardaydii jaamacadda camuud waqti hore soo dhameeyay ninkan oo kale waxa weeyaan ardaydii isaguna 2 sano ka hor jaamacadaha dhameeyay marka waxay u kala qaybsan yihiin imika hargeysa oo kale jaamacadda beder ayaa insha Allah horta freshka si toos ah hadii loogu hagaagaya ardayda kale ee noogu jirtaan waa jaamacadda hargeysa qayb kamida inta kale badankooduna waa ardaydii form 4 dhamaysay waa tahay cabshukuur markaan ka hadlayno ardayda baahiyaha gaarka leh runtii maaha ardaydan maqalka naafada ka oo kaliya marka tir ahaan la eego in tirada ardaydu aad u fara badan tahay baahiyaha gaarka loo tiradii loo xadiday ay ka badan tahay waxa laga yaabaa in soo baxaan arday kale oo iyaguna chance aan helin ardayda kale bal inta hogaalkaaga naafada ka cagaha ama indhaha ama gacmaha ee kale iyaguna barnaamijka ka qayb galaya waa ilaa intee wad ku qiyaas lahayd horta sida guud tirada guud ee ardayda iskuulada ku jirta min laascaanood ilaa iyo boorama tiradooda guud waxa weeyaan 488 arday in the whole ma naafada qaybeeda kala duwan taa lama oran karo ardayda iskuulka ku jirto weeyaan dadka naafadi dad waxa jira dad baahi gaar ah leh oo jooga magaalada oo maanta ama physical ama gacmaha ah ama indhaha ah laakiin tirada guud ardayda ayaan anigu haya dhaatadii wasaaradda waxbarashada ayaa hanaya waa 488 arday ayaa ku jira laascaanood ilaa iyo boorama dugsiyada sare ilaa jaamacadaha markan tiradii guud ee IMS dhaatadii weey marka aynu eegno hadaba ardaydaasi inay u baahan yihiin ama dadkii dhameeyay ee special needs-ka ahaa tirada guud ee dadka physicalka ah ee 15 tirada dadka indhoolayaasha 8 bay ku joogan oo wali dugsi sare ma aynay gelin 3 qof baa dhameeyay marka halkaas iyagu wali dugsi sare ma gelin marka isaguna waxa jira Sheekh Bashiir imka dugsiga Khayr Allah siiyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee cusub inuu dhammaan ardaydii uu rabo in 8ka iyo dugsiyadii sare laga bilaabo iskuulkii loo dhigay magaciisa Sheekh Bashiir in iskuulka la siiyo hadii la yiraahdo oo ay qayb kamid ah wax ku dhigtaan laakiin imika ahaan anigu tirada aan haya waxa ugu badan ardaydan dhagoolka ah oo qaarkood ay dhameeyeen jaamacadaha qaarkoodna ay ku jiraan dugsiyada sare ardayda kale cabdishakuur waxaad ka warantaa baahiyaha gaarka leh sida ardayda lugaha naafada ka ah oo qaarkood barnaamijka hore ay ka faa'iideysteen waqtigan ay ka mid yihiin shaqaalihii nasiibka helay inay ka shaqo galaan hay'adaha dawladda ee kala duwan ardayda iyaga bal ka waran sanadkan oo kale arday ma jireen soo codsaday barnaamijka shaqo qaran horta inta imka soo martay wasaaradda waxbarashada ee baan anigu haya tiradooda 8 arday baa soo maray oo dadka baahida gaarka leh 5 hablood iyo 3 inamood marka sidii tooska hay'ada kuwan processka aanu mariyay uban kuwan oo marino waxaan ku xirnay barsaabka ayaan geynay waraaqahooda marka 8 arday baa imika physical disability-ga haya laakiin tirada guud ee imkaan haya wax weyn 25 arday oo dhagoola iyo 8 arday oo ah kuwa gobolka Maroodijeex oo gaar waa tahay gobolada kale cabdishakuur ee Soomaaliland guud ahaan bariga galbeedba ma ka waraysan ardayda sidoo kale barnaamijyada shaqo qaran doonayeen inay ka qayb galaan xareysanaya aad iyo aad baad mahadsantahay horta waa sanadkii labaad ee hawshan shaqo qaranta ay socoto sanadkii horeysay dadku wada cusbaayeen qaabkeena si fiican mu ahayn laakiin sanadka waxaan ku tashanay inaanu dhammaan horta tiradii meel isugu keenno oo naqaano tirada guud ee dadka baahida gaarka ah ee la siiyay barnaamijka shaqo qaran la siiyay marka waxaan doonaynaa markaan imika tirada helo inaan dib isugu qaybino anaguna maadaama IMS-ka hayna intii noogu jirtay aynu marka si fiican loo qontay marka waa in tiradii guud ee goboladoo dhan la helaa marka waxaan ku balansanahay
xafiiskan barastaafka inaanu dhammaan tirada la siiyey ee barnaamijka shaqo qaran agaasimuhu uu siiyey in horta meel isugu keeno kadibna markaas si fiican loo qaybiyo waa tahay cabdishakuur maxamed cabdi runtii muddo dheer baad xafiiskan ka shaqeynaysay waaxda baahiyaha gaarka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska arday badan baad gacanta ku soo qabateen bal waxaad ka warantaa ama aad bulshada reer somaliland la wadaagtaa ka hor barnaamijkan shaqo qaran ardayda tirada intaan la eg markaan arkana maanta siday shaqo u doonayaan oo ah ardaydii baahiyaha gaarka leed gaarna ahaana dhinacii maqalkii oo keliya tirada inta la eg ay garabkayga fadhidaayeen waxaa laga yaabaa in ardayda kale aad u badneed ee baahiyaha kale iyaguna duwan dhammaan markaan isu wada geyno halkay ka heli jireen shaqooyinka sidayse suuqa ama hadday noqoto ganacsatada ama shirkadaha kale gaarka loo leeyay ma ka heli jireen fursado shaqo oo aan ahayn kuwa maanta dowladdu ay siisay aad iyo aad baad mahadsan tahay walaalkay jacfar ardaydani ama physical ahaadaan ama baahi indhaad ha yeeshaan ama dhagool ahaadaane markii hore wax shaqo ah oo ay bilaabi jireen ma jirin madaxweynahan ayaa noo bilaabay khayrlaha siiye kuwa shaqada helaana waxayna mid ugu gartay tusaale ahaan muxuu ahaa xilligii dowladdeennii hore ee siiraanyo waxaa ka mid ah ninka agteeda fadhiyo kale maxamuud oo kale wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu horreysay ee jaamacadda camuud la qaaday ee lagu kala qoray berbera iyo wasaaradaha howlaha guud ee lagu kala qoray laakiin lama odhan karo waa tiro guud bay ahayd dee waxay ahayd 6 arday oo ka mida bay ahayd laakiin annaga hawshaas wallahi waynagu adkaa ardayga kolkuu soo dhammeeyo weliba baahi gaara leeyahay dee xanuun aanay dadka kale dareemayn baan anagu dareemaynay laakiin mar kasta waxaan u baxad celinaa madaxweynahan barnaamijka shaqo qaran runtii waa lagu kala nastay marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ardaydii oo maaragtay hididiile heshay ay ku shaqo tagaan oo kolkay dhammeeyaan waxbarashadoodii ay madartay saa ku bilaabaan marka aad baan ugu mahad celinaa mar kasta madaxweynaha hawshanna waa farxad maanta waa adiga arkaya oo waxa weeyaan dee shalay iyo maantaba isku mid maaha marka aad iyo aad baan wallahi happy u nahay dhammaantayo aad baan ugu faraxsannahay hawshaasina totally ma jirin oo lama odhan karo ardaydaasi way shaqayn jireen absolutely ma jirin waa tahay daawadayaal waxaa jecelahay ardayda garabkayga fadhido dhammaantoodba u badan ardaydii maqalka naafada ka ahaa oo in badan aan kula kulannay iyagoo ku jira dugsiyada goobaha waxbarasho sidoo kalena qaarkood halkan fadhiya garabkayga aan kula kulmay wakhtigii imtixaanaadka shaadiga laga qaaday iyagoo ardaydii kale dhigooda imtixaanaadka shaadiga kala qayb qaadanaya waxaan jecelahay bal inaan weydiiyo fursadaha faraha badan ee barnaamijka shaqo qaran ku jira ay ka mid yihiin wasaaradaha dowladda inay ka shaqo galaan hadday noqoto hay-adaha kala duwan dhinaca injineerka ku shaqeeya kuwa waxbarasho ka shaqeeya caafimaad ka shaqeeya sidoo kale waxaa jira ciidamada kala duwan ee qalabka sida hadday noqoto biliiska militariga iyo sidoo kale asluubta ardayda halkan fadhida cabdishakuur diyaar ma u yihiin barnaamijyada sidaasoo kale ay dhammaanba inay ka qayb geli karaan goobahaasoo kale ma jiraan si arday si gaara u xiiseynaysa in difaaca ciidanka qaranka ka mid noqdaan oo qaranka ay difaacaan waxaan sugi doonaa jawaabta ardaygaasi waa tahay bismillahi raxmaan raxiim wuxuu yidhi niyow alla naxariistee fadal iimaan baan mar u tagnay oo aanu kala hadlaynay hawshaas marka iminka waxaan doonayaa buu yidhi 10 arday oo ka mida inay galaan ay booliiska galaan sanadka waa u diyaar buu yidhi inay ciidamada qaranka ay galaan fadal waa kii dhintay ilaahay u naxariisto marka wuxuu yidhi meeshan cusub ama taliyahan cusub ayaan imikana weydiisanaa inay nooloogu daro 10 arday oo ka mid ah kuwa booliiska lagu daro habluhu may gelayaan ciidanka can waxaan eegi doonaa habluhu see u xiiseynaya bal in ciidamada biliiska ka qayb qaataan ama militariga oo kale ama ciidamada kale ee qalabka sida iyagu ma doonayaan inay galaan booliiska inay galaan ma doonayaan laakiin waxay doonayaan inay barnaamijka shaqo qaran ay ka qayb galaan bay doonayaan barnaamijka shaqo qaran waxa uu leeyahay runtii qaybo kala duwan qaybaha aadka u daranaya ardayda ama fursadaha shaqo jeceliya ka shaqeeyaan oo kale inanka garabkayga midigta fadhiya oo ah gudoomiyihii ardayda maqalka naafada ka aan jecelayn aan weydiiyo qaybtay doonsaad ka shaqeyso su-aashu waxay noqonaysaa ardayda dhagoliyaasha baa la weydiiyey su-aasha barnaamijkan shaqo qaran la yidhaahdo magaciisa idinku maxaa doonaysaan inaad qaybtee inaad ka shaqaysaan ayaad doonaysaan macallinbaa boolisbaa wuj marka koowaad madaxweynaha waanu mahad celinaynaa marka labaad waxaan mahad celinaynaa agaasimaha shaqo qaran oo isaguna hawsha noo fudeydiyey marka saddexaad waxaan mahad celinaynaa barasaabka iyo qaybtaas haddii aan ka jawaabo su-aashaas dadka dhogolayaasha ah waxa ugu badan ee ka shaqayn karaa waa macallin kow qaarkood ayaa raba inay booliska galaan
gaar ahaan weliba qaybta difaaca inay galaan ciidanka in lagu darana waan jecelahay waanay ka shaqayn karaan waayo example buu yidhi dadka dee shaqo qaran sanadkii hore oo kale waa isku da' baan nahay isku age baan nahay isku midna waynu nahay dhammaanteen waanay gaardigi karaan waanay tababaran karaan markaa dhifka iyo dadka kalena waa isku mid dhifka haddii lagu darana waxa dhici karta buu yidhi haddii ay galaan oo booliska kale lagu daro maadaamuu dhagoolii uu xanaaqo waxa dhici karta inuu dadka ku furo marka inay militariga ka qayb galaan baan jecelahay waxaan aad u jecelahay buu yidhi qaybta OB-ga in la baro haddii aan booliska kale ka qaybin in OB-ga kale la baro oo aan noqono kuwa dembiga baara ee qora aad iyo aad u mahadsan aad iyo aad u mahadsan yihiin ardaydaasi kala duwan ee daawadayaal waxaa iyadu xusid mudan in intii halkan barnaamijkan ku guda jirnay mid ka mid a ardayda halkan fadhida oo ardayda garabkayga midigta fadhida ay tahay in ay iga codsatay in barnaamijkan codkeeda aan ka gudbino isla markaasina ay fariin halkan uga dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxda qaranka ee kala duwan barnaamijka mas-uuliyiinta barnaamijka shaqo qaran iyo sidoo kale howlwadanada diiwaan gelinaya ardayda waxaan jeclahay ardaydaasi inaan kusoo dhaweeyey isla markaasina codkeeda iyo dareenkeeda in ay halkan ka gudbiso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول الله بما أسكله هل كنا نسكوك على كنا ما أنت فرحات بيتاي إن دمان بأورك اللي ندقول السومال لأن بعض أورك اللي ندقول السومال ده كسقيب قرن شقالها قرنكا وأنا مركور شقالها قرنك قيق ولا أنت السنة ده يدقول إيش ترين ميت ترين أرضي يدقول يلهم بقى كنا فا أو سعر ده يدمان بشقالها قرنك الدولة ده قفك قيب قليل ميت ترين ومركور السنة كلام ده كل اللي بعتها يدقول إيش قيب قلنا فرحات بيناتاي ka midown la midowno ama la mid noqono dadka caadiga ee dhagaha qaba waayo inta dhagaha qabtay ee shaqaysatay iyo inta dhagolayaal shaqaysatay inta dhagaha qabtay waa badan dhagolayaasha laba qof ama saddex qof baa ka shaqaysta dawladda iyo shaqaalaha qaranka maantana 25 way dhaafsanta ka shaqaysanaysa farxad baan rajaynayaa insha Allah iyo ka khayr badan waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa madaxweynaha iyo baadhasaabka iyo agaasimaha iyo cid kasta oo ka qayb gashay iyo ururka dhalinyarada gobolka Soomaaliya oo soo agaasimay abaabulkan quruxda badan leh Allah mahad la khayr baan rajaynayaa ardayda la hadlay socodkeeda aad maqlayso waxa kamid tahay ardayda aan maqalka dhayaha naafada ka haysan markaasna waxba maqlin balse waxay gudbin karaysaa codkeeda oo bulshada ay maqlaysaa iyada laftigeedu laakiin si isma maqlayso waxay aad iyo aad ugu mahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya cid kastoo ka qayb qaatay barnaamijka shaqo qaran magaceedu waa Hana waxaan ku xasuustaa Hana si gaar ah u xasuustaa barnaamijkii u dambeeyay imtixaanaadkii shahaadiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadkii hore ay ka qayb gashay dugsiga 26 Juun oo ardaydu fadhisay imtixaanaadka ay ahayd Hana waxay sheegtay inay ka mid ahayd dadka dhagoodu caadiga ah markaasna bulshada maqalka qabtay ka mid ahayd balse ay maqalkeedii weyday 2011 xaniin nasiibay awgeed isla markaasna waqtigan laftigeeda indhaheedu waxa ku jira daciif baa ku jira aragteeduna aad uma fiicna waxaan jecelahay bulshada reer Soomaaliland in inta laga shaqeeyo sidii indhaheeda laftigeeda loola sii tacaalaha in indhaheeda ay u caafimaad qabaan oo saa ugu sii fayoobaadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan ardayda garabkayga fadhida oo runtii ah arday ku dhiiran inay barnaamijyada inta badan bulshada ka qayb qaataan telefishinka qaranka Soomaaliland ay la wadaagaan barnaamijyo hore oo fara badan waxaa jira arday kale oo garabkayga fadhiyo oo in badan oo qaybta hablaha oo iyaguna barnaamijyo hore TV-ga qaranka ka baxay naga caawiyay sidii aan bulshada ugu gudbin lahayd hadday tahay barnaamijkii u dambeeyay imtixaanaadka shahaadiga oo ardayda halkaa fadhida oo idin muuqataa ay barnaamijkaasi kaalin muuqato ku lahayd oo runtii ay telefishinka qaranka Soomaaliya si loo gudbin lahaa nagala qayb qaadatay dhammaantood aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale si gaar ah daawadayaal ugu mahadnaqaynaa barasaabka gobolka Maroodijeex barasaabka ku-xigeenka gobolka Maroodijeex iyo xogayaha guud ee gobolka oo dhammaantoodba si naxariis leh uga howlgelayay muddadii ardayda ay ku guda jireen isdiiwaangelinta iyo nidaamkii loo shaqeynayay sidoo kale waxaan maanta wasaaradda arrimaha gudaha oo ardaydan iyaguna u fududeysay nationality cardkii ama identity cardkii dhalashada iyaguna u fududeyn sida ugu dhaqsaha badan ay ugu sameeyaan markay looga baahday barnaamijka shaqo qaran waxaan jecelahay barnaamijkan waxbarasho
oo runtii ay nagala qayb qaateen cabdishakuur maxamed cabdi oo ah agaasimaha waaxda iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed maxamed diiriye dhammaantoodba waxaan leenahay aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa barnaamijkan quruxda badan ee bulshada la wadaagno xukuumadda iyo guud ahaan shacabkana aan gaarsiino kaalinta iyo dhiirigelinta barnaamijkii shaqo qaran u yeeshay ardayda maqalka naafada ka ah iyo guud ahaanba ardayda baayaha gaarkaa leh ee somalilan barnaamij kaloo kan lamid a koorinta kulmay dhammaantii waxaan ku dhaafanaa waa dhinaca sawir qaadida cabdikariin siike iyo marwaan sulba isku dubartii habeynta dhammaantii waxaan ku dhaafanaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu Thank you.